culumadeennii oo midaysan iyo dowladdoodii oo wada shaqayn toos leh mawduuca laga hadlaayay 3 bil soo socotana ay tahay culimada Soomaaliyeed iyo dowladdu inay lahaadaan wada shaqayn ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga arrimaha dib u heshiisiinta tan labaad inaan ka hadalno maxaan ku yiraahdaa xagjirnimada iyo sidii looga hortagi lahaa ama sidii loola dagaalamo Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dhibaatooyinka dhinacyada badan ee Soomaaliya muddo haystay looga bixi karo wada shaqaynta shacabka culimada iyo dowladda culimadu doorkoodu waa cad yahay doorkoodu waa saan sheegay waa indhihii ummadda Soomaaliyeed iyo indhaha guud ahaan muslimiinta caalamka in aad si sax ah oo wanaagsan oo runtii nidaamsan aan u wada shaqeyno cadowgaasna wada dhibaya oo dhibka nagu hayana aan isku meel uga soo istaagno tan kale waxa weeye caqabadahan sheegay looga hortagi karo waa shacabka Soomaaliyeed iyo culimadooda iyo dowladooda oo wada shaqeyn leh oo wada shaqeynaya ka hadalka amniga iyo dib u heshiisiinta ee shirkan culimada Soomaaliyeed ka furmay Mugadisho ayaa dad badan rajo ka qabaan inuu iftiimin doono wadiiqooyinka ugu wanaagsan ee dalkan looga badbaadi karo fikirka xagjirka ah ee salka oo dhibaatooyinka ka dhacaya Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Mugadisho.